war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo lagu faahfaahiyay qodobadii looga hadlay kulankii toddobaadlaha ee golaha wasiirada ay yeesheen waxaa ugu horeyn lagu sheegay in xubnaha golaha wasiirada Puntland ay warbixin ka dhageysteen wasaaradda amniga ayna ammaaneen ciidamada qalabka sida horumar waliba u taagan sugidda dabagalka iyo fashilinta isku dayada amniga lidiga kuwa ee qaswadayaashu ay maleegayaan waxaana golaha wasiiradu ay sheegeen in loo baahan yahay in la iska kaashado lana garab istaago ciidamada geesiyada ee u taagan xoreynta iyo xasilinta nabadda guud ee dalka war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in golaha xukuumadda Puntland oo tixraacaya dastuurka dalka iyo baahida loo qabo hay'ad amni oo si buuxda u shaqeysa ay xubnaha golaha wasiiradu cod buuxda ku meel mariyeen mideynta hay'adaha BIA iyo BSS isla markaana loo bixiyay magac cusub oo ah hay'adda nabad sugidda iyo amniga Puntland ee BISA ugu dambeyn kulanka golaha wasiirada Puntland oo uu shir gudoominayay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xubnaha golaha wasiirada waxaa loogu qaybiyay xeerka tayadhowrka kheyraadka badda waxaana xeerkan oo ay soo diyaarisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland uu qeexayaa baarista tayada hubinta iyo cadaynta guud ahaan kalluunka maxamed bilegele warbaahinta dowladda